السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الكسور دوادا موضوعنا مانتا فضلا هداد كعصب تاي كنال كان هويغا بلشدا فضلا سبسكرايب نوصار كنو صوبير كان من نقا أصحابتا كعودا جانال كهويغا بلشدا داwo macluumaadyo laga yaabo inaadan wax badan koogeen waa macquul inaad xogtan hayso aadan hayna balse nala soco daawade xalqadii labaad ee aan soo galino moogtahay in wadanka Spain uu yahay wadanka ugu buuraha badan qaaradda Yurub ayna ku yaalin buuraha dhaadheer oo dalxiisayaashu ay soo booqdaan saacado balse hadda tagto waxa iga dardaarana inaad Allah weydiisato inaad nabadqab kaga soo laabato cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in diinta Islaamku ay sanadkii tahay 250 ay noqonayso diinaha ugu badan ee la haysto adduunkan oo dhan balse waan hubaa in dadka ugu badan ee diinteena suuban haysta inay yihiin dad boqolkiiba boqol muslimiin ah xayawaanka ugu da'da weyn ee maanta dunidan ku nool waxaa lagu magacaabaa diin magaciisa saxda waa diin balse ma taqaanaa magac kale Jootin ayaa la yiraahdaa waxa uu jiraa 187 sano balse diinka anigu intaan noolaa waan arkay balse rajada ugu weyn ee diinka ayaa ah inaan sanado badan uu diinku sii noolaado tahay gacanka maroodigu uu ka koobay in ka badan 15,000 oo dhuumad una awood weyn u leeyahay balse daawade meeshaad ku aragta maroodiga cagahaaga wax ka day waayo saad mooday maaha maroodigu moogtahay in Jeff Bezos ninka iska leh Amazon uu bil walba faa'iido lacag ka badan 10 milyan oo dollar dakhligiisa waxaa lagu qiyaasaa balaayiin dollar balse waxa xusud mudan daawado inuu ku bilaabay lacag aad u yar waa dhaqanka ganacsade kasta inaad lacag yar ku bilowdo hadhowna aad noqoto milyan dollar taajir ah caasimadda wadanka Belgium ee Brussels muslimiinta ku nool waxa lagu qiyaasaa 48% waayo waxa ku nool muslimiin aad u badan sanadka ka dambeeyay ay ku soo bataan Belgium waana rajaynayaa in muslimiinta ku nool ee daawanaysa mowduucan inaad ka mid tahay oo ku nooshahay Belgium gaar ahaan Brussels cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dadka dholo cadaynta badan sidoo kale aan xanaaqa badnayn ay yihiin dadka loogu jecel yahay haddaba si aad u noqoto qof la jecel yahay ku dadaal dholo cadaynta fadlan mar walba ku xinow kanaalkeena hoyga bulshada haddii aad daawatay muuqaalkan like saar soo noqor lambarka aad ka heshay fi amaanillah nooli kulantay saaxiibayaal لا نحتاج المال كي نزداد جمالا